Assalaamu calaykum. Sheekada qaybtii hore waxay inoo joogtay hudo habriirteed iyo wiilkii la rabay in lagu daro ayaa waxay dareemeen in labadan xiriir ka dhaxeeyo. haddana waxaan ka sii anbaqaadi doonaa qaybteedii xigta. halkana waa kanaalka iftiinka. magacayguna waa diin xuseen shacab. ku soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta. wiilkii hudo la doonayay wuxuu isku dayay inuu hudo gaar u la baxo, balse intaanu la hadal ay ardaydu su'aalo ka horgeeyeen wiilkii. waxay weydiiyeen sida iskugu soo nuurayaan khaalid iyo hudo. isagoona jawaabin ay ardayd kale haddana dhahday, saaxiib hadday lamaano noqdaan sideed ugu hambalyeyn lahayd. wiilkii markuu arkay halkay xaaladdu marayso ayuu si dhab ah u qancay, wuxuuna yidhi, farxaddiinu waa farxaddayda. ardaydii oo farxaddooda xad ka dhaaftay ayaa brofesor aadan xilli ay marayso 5:15 galabnimo ayaa wuxuu u ku wargeliyey inay si degdeg ah u diyaargaroobaan. khaalid laftiisuna isagoo kolba xasuusanaya farxaddii dalxiiska isla markaana isweydiinaya jawaabta ka soo bixi doonta hudo ayuu gurigii tagay. balse hudo waxaa markiiba su'aashay habaryarteed, waxayna weydiisay waxa labadooda ka dhaxeeya. hase ahaatee hudo maynan ka jawaabin. markay guriga fooda gelisayna waxaa lagu salaamay in fiisii u soo baxay 3 cisho kadibna ay baxayso. hudo wax walba kadiis ay ku noqdeen, waxayna weyday waqti ay go'aan ku qaadato. ardaydii markay maqleen in hudo waddanka ka dhoofayso waxay abaabuleen xaflad sagootin ah oo lagu macsalaamaynayo hudo. khaalid wuxuu go'aansaday inuu caawa war ka soo qaado. khaalid aad ayuu u labisan yahay, wuxuu gacanta ku sidaa ubax gaduudan iyo hadiyad ugu talagalay hudo. hotel ayaa la iskugu yimid, ardayduna way dhan tahay, hudona kama maqnaa. laakiin waxaa la sugayaa khaalid oo ah shakhsi aad loo taageero. hudo way u dulqaadin weysay maqnaanshaha khaalid, sababtoo ah waxay doonaysay inay go'aan cad ku kala tagaan oo ay hoosato inuu caashuq dhab ka yahay, maadaama ay beriba 10 subaxnimo oo ay diyaarad ku qoran tahay. xafladdii way dhammaatay, waxayna ardaydii si maqaam sare leh ay ku sagootiyeen hudo, waxaana lagu kul dareeray. wiilii gabar ardayda ka mid ahaa ayaa waxay isweydiiyeen maqnaanshaha khaalid, waxayna tageen gurigii khaalid. balse dadkii guriga joogay waxay yidhaahdeen, khaalid intuu labistay ayuu fiidkii naga soo baxay. labadii arday waxay damceen inay baadigoobaan, laakiin meel ay u dhaqaaqaan ayay garan waayeen. khaalid cid ka warhaysa ma leh, jahan iyo cirib meel u dhigin cid taqaana ma leh. la soco sheekadani qaybteeda xigta ah. maanta muuqaalkeena halka ayuu ka gaay. intaanu ku kulmi doono tanii muuqaalkeena xiga. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.